halkani waa Calabria oo ku dhaca juqraafi ahaan gobolada koonfureed ee dalka Talyaaniga. Caasimadda Rome 500 kiiloomitir oo dhanka koonfurta ayay kaga beegan tahay. Halkan waa dhul maafiyada ay aad ugu dagaalantay, dad badan ay ku dileen, awood ahaana 30% magaalooyin badan oo dalka Talyaaniga dhaca ayay awood ku lahaayeen. Maafiyadii qashinka ee hubka nukliyeerka maxay ka sameeyeen gobolkan? yaa tagay sanadii 1992 magaalooyin ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya. sidii xiriir u dhaxmaray maafiyada Talyaaniga ahayd iyo koox Soomaali oo la shaqeynaysay oo Soomaali joogay. lacagta halkii loo marsiiyay yaa dilay suxufiyiintii u shaqeynayay TV-ga Rai 3 ee dalka Talyaaniga laga lahaa. dilkaas oo ka dhacay Muqdisho. wiil Soomaaliyana 18 sano oo xabsiga ugu jiray. kusoo dhawow mar kale barnaamijkan, anigoo Maxamuud Sheekh Cumar Milaana ayaa idiin soo jeedinayo. haddii aad ku cusub tahay boggiga gaarka YouTube-ka iyo Facebook-ga, labadaba igala soco si aad u hesho barnaamijyo isku dheelitiran. qashinka hubka nukliyeerka lagu bacrimiyay lagu shubo xeebaha dalka Talyaaniga, gaar ahaan gobolka Calabria, wuxuu sababay kumanaan kun oo reer Calabria inay nolosha ku waayaan maadaama ay ka qaadeen xanuunka kansarka ay ku dhaca maskaxda iyo wadnaha. 1985 ayay soo shaabaxday arrintan markay dhaqaatiir reer Talyaaniga ay arkeen xanuunkan inuu yahay mid xadka ka sii baxaya kuna faafaya gobolka. Joya Tawarero oo ka soo jeeda gobolkan ayaa qaatay qorshaha heshiiskan 80% guud ahaan midowga Yurub. balse awoodda maafiyada ay ku lahaayeen gobolkan iyo gobolka diriska la ah Sicily iyo koonfurta dalka Talyaaniga dhaca ayaa suurtageliyay in caqabadan aan la xakameyn waayo, maadaama ay maafiyada cagajugleyn iyo dilal qorsheysan ay iskugu dareen saraakiisha dharcadka ah iyo kuwa booliiska gaarka ugu tababaran ee koonfurta ka howlgelayay. Ra'iisul wasaarihii 46 ee Jamhuuriyadda dalka Talyaaniga soo maray Giovanni Giuseppe ayay ku noqotay caqabada ugu weyn ee xakameynta maafiyada. waxa uu la yimid qorshe si degdeg ah loogu bedelay saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka Carabinieriga oo ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran. waxaa gudaha loo galay bedelka qorshaha Polizia Stato ciidanka booliiska caadiga ah ee dalka Talyaaniga, kordhinta ciidanka dharcadka ee koonfurta. waxaa dhammaan isku shaandheyl lagu sameeyay hay-adaha amniga gobolada koonfurta ka howlgalo si aan loo aqoonsan heebtooda. waxaa guud ahaan gobolada kale loogaga yeeray saraakiishii ugu aqoonta badnaa in koonfurta loo bedelo si ay waxqabad degdega ugu yimaadaan loona badbaadiyo kumanaan kun oo reer Talyaaniga noloshooda. cadaaladda dalka Talyaaniga ayaa ku weeraray cabashada dadkan dhimashadooda. banaanbuxu wuxuu noqday mid xad dhaaf ah, dadku ka dalbanayaan inay hadlaan cadaalad degdeg ah. maafiyadana waxay ku noqotay caqabad saraakiishii hogaaminaysay. waxaa dhammaan dilal qorsheysan loo geystay dadka ugu sarsareeya deegaankan ee shaqada ku leh abaabulka banaanbaxa, kuway uga shakiyeen inay la shaqeeyaan dowladda iyo inta sirdoonkii ugu dhadhowaa eeriyada gobolka. laamaha cadaaladda ayaa go'aan ku gaaray in khubaro degdega ee ka dalbadaan gobolada kale ee dalka Talyaaniga. waxay dhammaantood iskugu imaadeen gobolka Calabria inay baaris ku sameeyaan siday wax u socdaan. dacwadii ugu horeysay oo la helay sanadii 1989 ayaa lagu eedeeyay kooxo ka mid ah gruubka maafiyada inay qalqal ku wadaan gobolka iyo cadeemo laga helay deegaanada xeebaha dhaca ee gobolka Calabria. waxaa dhammaantood loo wada keenay cadeemihii waaweynaa kuwoodii ugu sareeyay hogaamiyayaasha maafiyada magaalada Rome ee gobolka Lazio ee caasimadda Lazio iyo caasimadda dalka Talyaaniga. mar labaad ayay isku dayeen dacwad oogayaasha inay helaan cadeemo dheeraad ah si u fududaato maxkamadeynta tuugada qashinka hubka nukliyeerka ka ganacsada dhibaatadana ku ah dalka Talyaaniga iyo guud ahaan caalamka.
mayse suurtagelin oo caddeymihii boqolkiiba 70 waxaa baabi'iyey qayb loo adeegsaday lacag, kuwa la xaday, kuwa lagu eedeeyay inay sirdoonka laga iibiyey, qayb sirdoonka ka mid oo la shaqaynaysa maafiyada. inkastoo dhammaantood cadeymo lagu waayey, mar labaad ayaana la guda galay in dacwad kale la diyaariyo. dacwadahan oo kusoo dhammaaday guul daro. Joya Torreira iyo guddi la shaqaynayo maafiyada ka mid ahaa ayaa bilaabay qorshe mar kale inay ka fikiraan. waxaa kaloo xogta ka mid ah in dad Soomaali asal ahaan u dhasho haysta dhalashada dalka Talyaaniga lagu qoray maraakiib Talyaani ah ee shifka lagu magacaabi jiray, qashinkana ka soo daabulayay dalka Talyaaniga, waxayna keeni jireen gobollo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Mudug iyo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeellada Dhexe ee qashinka ay ku daadin jireen. waxayna kalluumaysi ahaan ugu soo qaadan jireen kalluunka dalkeena 2%, iyagoo kaga dhiganaya marmarsiyo inay yihiin ganacsato kalluunka ka ganacsada. markay Talyaaniga kalluunka geeyaan waxay dib u soo daabuli jireen hubka nukliyeerka qashinkiisa ee kiimikaalka. markaan qashinka leeyahana aan idinkugu celiyay dhegeystayaal iyo daawadayaal, waxaan kala jeedaa haraadiga ka soo hara hubka nukliyeerka ee kiimikaalka uu ka samaysan yahay ayaa lagu daadiyay xeebaheena. xiriirkan dhex maray maafiyada dalka Talyaaniga iyo Soomaalida qayb ka midana waxaa fududeeyay nin lagu magacaabo Cali Warsame, sida buugga The Mul Mafia ee dalka Jarmalka qorayaal ka mid ay ka qoreen baaristana qayb ka ahaa. iyo barnaamijyo ka baxay Raya Uno ee dalka Talyaaniga, Raya 2, Raya 3 iyo qaybo ka mid ah janaalada dunida ee ka faalooda dokumentariyada maafiyada ee tuugada ah. waxaa kaloo ka mid ahaa inuu Cali Warsame ahaa ninkii ugu xiriirka badnaa ee arrimahan u fududeeyay, qaybna ka ahaa in Soomaaliya loo daabulo qashinkan. dad Talyaani oo wariyaal u badnaayay sirdoon ayaa isku dayay baaristooda. ilaa hadda lama garanayo cidda rasmiga ay dishay. waxaa kaloo qayb ka ahaa in dad Soomaaliya oo caawinayay baarayaasha iyagana la dilay, qaarkoodna loo qaatay in loo dilay aana qabiil dhulka Soomaalida gudahooda. wariyaal ka mid ah dalka Talyaaniga ayaa gaaray gobolka Mudug si ay baaris ugu sameeyaan kiiskan. umuusan suurtagelin ee Muqdisho ayay u soo duuleen si ay u helaan xog dheeraad ah, iyagoo ku raadjooga cidda ka dambeysa soo daabulida qashinkan hubka nukliyeerka kiimikaalka ka soo hara, iyo xiriirka u dhexeeya maafiyada Talyaaniga iyo koox maafiyada la shaqaynayso Soomaali ahaa. Ilaria Albi oo Raya 3 u shaqaynaysay kaamirimaankeeda Mine Roberti ayaa naftooda ku waayay 20 Maarso sanadii 1994 gudaha magaalada Muqdisho. Xaashi Cumar Xasan oo wiil Soomaali ah ayaa lagu eedeeyay dilka kooxdan wariyaasha dalka Talyaaniga, iyadoo dad Soomaali ah oo Talyaaniga ka yimid ee qayb Soomaaliya joogto la shaqaynaysan ay fududeeyeen in Xaashi laga dhigo qofka dilka ka dambeeyay. Xaashi oo ku noolaa gobolka Shabeellada Dhexe oo kana dhaadhacsaneed fikirka Yurub ayaa dabinkan loo dhigay, wayna ku guuleysteen. Xaashi ayaa afkiisa noogaga sharaxaya sababtoo xabsiga u galay. waxaana la xiray 1998 bishii Janaayo iyadoo la adeegsanayo koox Soomaaliya oo laga soo daabulay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxaana lagu soo eedeeyay laba wariye ay ku dhimatay magaalada Muqdisho 20 Maarso 1994. gabar wariye wiil cameraman gabadha waxa la yiraahdaa Ilaria Albi, wiilkana waxa la yiraahdaa Miran Rofatin. ayaga lagu soo eedeeyay oo ah in aan qayb ka qaatay. marka eedeyntaas waxa keenay waxa loo heesay dawladda yaa kugu soo adeeyay waxa ugu soo eedeeyay dawladda Talyaaniga ayuu adeegsanayso koox Soomaaliya. ileen gabadhan waxay dalka Soomaaliya u tagtay xilligii Unisomta inay wax ka qabato, wax ka ogaato sunta lagu shubay xeebaha Soomaaliya iyo hubka sharci darrada oo hogaamiye kooxeedada loo geeyo. baaritaan bay ku jirtaa. baaritaankaasi ku jirta. alloora baaritaanka waxbay ka ogaatay gabadhii waa la dilay.
marka waxaa la damcay in la qariyo oo laisku taxluujiyo in la qariyo. qaabkii loo qarin lahaa wuxuu ahaaday in qof aan dembi ka gelin la yidhaahdo waa uu ka galay, asbaabtii ay u dhimatay asbaab aan ahayn la sheego. si kaloo lagu heli karo ciddaa in qof la xiro. anaa la xiray iyadoo la adeegsanayo koox Soomaaliya oo laga soo daabulay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, kuwaas oo interview loo dhisay qaabkii maxkamadda ay uga hadli lahaayeen iyo qaabkii waraaqda dacwadda ay qori lahaayeen. ilaa qofka iska xirmaan uu in qoraal lagu xiraa. sida xoog badan ay baahinayaan ayaa sheegaysa inay laariyay dileen qaar ka mid ah sirdoonka dalka Talyaaniga oo u adeegsadeen maafiyada iyadoo loo sii mara dad Soomaaliya. inkastoo aan weli la cadeynin kiiska Ilaariyana weli waxaa cadaalad loogaga sugayaa inay ka garnaqdo maxkamadda sare ee dalka Talyaaniga. waxaa kale oo jira dad badan oo baarista maafiyadan isku dayay haddana la dilay. dhowr mar ayaa feelkan dacwadiisa la hor keenay qaybo ka mid ah maxkamadaha ku yaalo magaalooyinka Napoli, Roma, qaybo ka mid ah gobolka Calabria, Milano, Torino. intaba waa lagu guuldaraystay, inkastoo qaarkood loo xukumay dembiyo ku aadan daroogooyinka, hubka sharci darrada laga ganacsado, dilal loo geystay saraakiil sare, xubno ka tirsan dowladda, dad shacaba, ganacsato. balse kiiskan maafiyadii qashinka weli ma cadda cidda rasmiga ay hogaaminaysay. dad badanna looma maxkamadeen oo cadaaladda kaga maseen hor muuqan. barnaamijkan qaybtiisa hore intaan haynoo joogto, anigoo Maxamuud Sheekh Cumar Milaana ayaa idiin soo diyaariyay idina soo jeedinayay. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. tan iyo kulan dambe saaxiibadaan u jecelnahayo. haddii aad ku cusub tahay barteeda gaarka ee Facebook iyo YouTube-ka, labadaba saaxiib igula noqo si aad u hesho barnaamijyo macquul ah kuna salaysan dhexdhexaadnimo iyo baahin dhammaystiran. nabadgelyo dhegeystayaal.